magacaygu waa Maxamed Amiin waxaan ahay graphic designer iyo web developer waxaan ku doortay marka koowaad waa xirfad aan hami ama passion u hayo aad u sareeya waliba aad iyo aad u sareeya marka labaad dunida maadaama ay isku rogtay dhanka digitalka iyo marketingska iyo dhan online ah maadaama ay isku rogtay inaan dunidaas aan la jaan qaado oo aan la socdo oo aan ka harin ayaan u doortay xirfadaas waxaan bilaabay xirfadan inaan daraaseeyo ugu yaraan 5 sano ka hor 2017 ay soo bilaabatay laakiin si professional ah ilaa 2019 ayaan ku soo dhex jiray si professional ah dadka markii aan projectyadooda u dhameeyo ama shirkadda ha ahaato ama shakhsiga waxa ay siiyaan amaan ay igu bedelaan oo ka qiimo badan amaantaas ama dhiirigelintaas oo ka qiimo badan wax walba ama qarash walba oo ku qaadan lahayd projectkaas markaas aad fulisay xirfadan inaan barto waxa igu dhiirigeliyay waxa waaye maadaama aan arkay dad badan oo xirfadan aan aqoonin magaaladana looga baahan yahay magaalada oo kaliya ma adduunka dhan ay tahay xirfad aad iyo aad looga baahan yahay ahna mid shakhsi ahaan hadaa rabtid aad u shaqaysan kartid haddii kalena aad company la shaqaysan kartid oo xorriyad badan ballaaran ku siinayso dadka walaalada ah oo doonaya inay xirfadan bartaan wiil iyo gabarba waxa ugu baaqaya koow inay jeclaadaan horta intaysan gudagelinba si ay si fiican ugu bartaan koow waa inay isjeclaysiiyaan oo arkaan wax muhiim u ah xirfaduna ay hadhow caawinayso meel walba adduunka ay ka tagaan aysan u baahnayn inay hal meel adduunka ay ka joogaan waa inaysan u barin sidii kaliya inay ku shaqeeyaan ay u bartaan inay ka dhigtaan mustaqbal ama hadaf aad u sareeya ayagoo kale inay bartaan just laakiin haddii aad ku baratid adigoo just isle meeshaas ka shaqeey ama waxaas lacagtaas ku hel yacni waxyar kadib way kaa guuraysaa marka waxaa ugu baaqayaa dadka doonaya inay xirfadahaas bartaan inay jeclaadaan kow marka labaadna ay hami sare ay ka leeyihiin labadaas ugu muhiimsan